kulanti wacan wanaagsan qiyaarteena la socota kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aynu kusoo qaadan doono xaaladda dalka Soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhawaan ka dhacdo isla markaana shirar kala duwan waayidii ugu dambeysay Muqdisho ay ku sameynayeen mucaaradka halka dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay qorshihii doorashada wali wado guddigii doorashada iyo xalintii khilaafaadka qaybo kamid ah magaalada Muqdisho lagu tababarayo. barnaamijka waxa ay qayb qaadanaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya, Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, iyo Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo horey uga soo shaqeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA iyo sidoo kalena haddana ah falanqeeya arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya ka faalooda. marka hore kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali Xasan oo garabkayga midig fadhiya. marka hore waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii la guda galo. maxaad leedahay aragtidaada sabab ay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka uu socday aysan u dhicin? way caddahay arrimaha siyaasadda wali laga heshin nimanka la yiraahdo daneelayaasha siyaasadda kala duwan heerar kala duwan ee xukuumadda waliba markaan ka hadlayna xukuumadda federaalka iyo xukuumadaha xubnaha ka xukuumadda federaalka oo aan wali maxaa la yiraahdaa mabda'iyan ka heshin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa. mar haddii mabda'iyan ah wixii ayagu aysan ka heshin oo mar kastana arkayso wax qabyo ah inta yiraahdaan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagaan ay tagaan guryahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyey waxaan ahayn dawladda federaalku halkan ka wado. marka dee warqad iyo qalin warqad lagu korqoray dood ma geli karo, laakiin waxaa moodaa marka hore qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran warguud inay ku qoraan. marka mabda'iyan aan weli laga heshin. waxaan siinayaa Cabdisalaan Yuusuf Guuleed. Cabdisalaan, sida uu Dr. Cabdi Cali Xasan xildhibaanka uu leeyahay waxaan horey mabda'iyan aan heshiis guud looga qaadanaya warqado lagu qoray, taasina waa mid sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin. arrintaas sidaad kula muuqata? waxaan arkaa horta wadankan doorashooyin baa la soo qabanayay intaasoo jeera doorasho haddii heer federaal noqotay iyo haddii heer maamul goboleed noqotay la soo qabtay. doorashada federaalka oo midda madaxweynaha Soomaaliya ugu soo doorto waxa heshiis baa ka yaalay, xeroosaad baa ka yaalay, heshiis baana lagu ahay markasta. laakiin waxa la jaan gooy jiray marka dawladda waqti ugu dambeeyay dawladdu jaan gooy jirtay qaabka wax loo dooranayo. waxaan maleynayaa dhowr fadhiya la isaga yimid 17 September sanadkan ayaan maleynayaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalku inay xamar ku shireen heshiis ay wada gaareen la yiraahdo habraaca doorashada. habraaca doorashadana si tafaasiil ah oo qodobaysan baa la isula gartay, la isugu raacay, heshiisayna noo sheegeen markay ka soo tageen. labadoodu wax khilaaf kama soo bixin, wax la isla ogaa xamal 1 October uu soo baxay qoraal. waxa la jibiyay marka waxay tahay wixii lagu heshiiyay la qoray ayaan suurta gelin. walibana waxaan leeyahay dawladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan qaybta jibinta ugu badan ee ka imaanaysa. haddaad fiiriso habraacu qodob uu leeyahay 2 3 4 ilaa dhowr buu socon 20 ku dhawaad. intaas qodob kasta waxa ku qoran kasoo qabo qodobka 8aad oo kale waxa ku qoran qofka doorashada ka soo qayb noqonaya da'diisa ku qoran waana 35 sano ka yareen. hadda guddiga doorashooyinka markaad fiiriso deelma yar ku jira waxa qodobka ku saxeexan oo kale kamid ah habraaca heshiiska qodobka 12aad qodobka maaragtay afaraad inuu qofku dhexdhexaad yahay, inuusan dawladda xil ka haynin ama xil dawladda uusan haynin. waxaasoo dhan marka waxaad malaysaa guddiga doorashooyinka inay dawladdu ku tumatay, in hay'adda nabad sugidda lagu soo daray, in agaasimihii madaxtooyada uu ka mid yahay. waxaasoo dhan waa qoran yihiin. marka waxaan leeyahay waxaa lagu xadgudbay wixii lagu heshiiyey sababtaas inuu dhici lahaa doorashada. waxaan u gudbinayaa arrintaas wasiir Al-Cadaala oo nala jooga. Al-Cadaala, sidaad u jeedo aad baa socota marka la eego Cabdisalaan Guuleed hadalkiisa. markaad fiiriso shaqaalaha rayidka lagu soo daray iyo xubno ka tirsan askarta ciidamada waliba nabad sugidda eedahaasi ma jiraan markaad dhinacina eegtaan?
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah wasalatu wasalam ala rasul lah sal slm waa salaamay doctoorka xildhibaanka iyo walaalkii cabdisalaan iyo dadka soomaaliyeedna dhegeystanaya iyo v o a intaas kasoo kow cabdicasiis sida la sheegay wadanka heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul dowladda soomaaliya ay samaysay oo aada iyo aada u weyn oo aada og tahay in shuruucdii doorashada iyo guddiyadii doorashada iyo wixii dadka soomaaliyeed ay filayeen oo dowladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo darteed dowladdu ay uga tanaasushay heshiiskaas oo ahaa runtii heshiis aada iyo aada u adkaa markii dowladdu ay gashay ama dowlad goboleedyada la galay dowladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa waxaana loo xil saaray ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay heshiiskaas fuliyaan dhankeeda tallaabooyinka ay ahayd dowladda inay qaado ay ugu horreysay in guddiyadii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedyada oo iskaashanaya intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yaryar oo jubbaland iyo puntland ku dhiman heshiiskii dowladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro cid cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go-aanadii dowladdu ay qaadatay ma jirto balse iyada oo laga jawaabayo cabashada dhanka saxaafadda ka timid ra-iisul wasaaruhu wuxuu fidiyey gogol wuxuu baaq u jeediyey dhammaan cidda cabasho qabta in ay u timaado oo ay la fadhiisato oo ay kala doodo waxay cabasho qabto gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dowladda waa ka diyaar dowladda waxaa ka go-an waqtigii loogu talagalay inay qabato guddiyadii loogu talagalay inay dhisto wixii adeeguhu fududayna oo loogu talagalay in hawshaa lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato ilaa haddana weli rajo xoogle ayaan qabnaa sidii loogu talagala ay u socotaa caqabado waa jiraan caqabadahana inay xalisaa ka go-an dowladda eedda ku saabsan dadka guddiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis baa meeshaan qoran annagu waxaan aaminsannahay heshiiska qoran wuxuu yahay 3 guddi in lasoo dhiso oo ah guddiga doorashada ee heer qaran iyo guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiyada dowlad goboleedyada guddiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay ee gacanta dowladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin habraaci lagu heshiiyey ma jiraan in shaqaalihii dowladda ee rayidka ahaa iyo dhinacyo aan dhexdhexaad noqon karin oo ciidamadu ay ka mid yihiin lagu soo daray horta arrinta ku saabsan dhexdhexaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guud waa dhexdhexaadnimada waxaa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay waxaa laga yaabaa cabdisalaan inuu qof jecel yahay cadaalana inuu qof jecel yahay dhexdhexaadnimadu taas maaha dhexdhexaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin soomaaliyeed oo sharcigu u ogol yahay in ay guddigaas ka mid noqdaan ilaa hadda cid dokumenti rasmi ah dowladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo guddigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebelaa diidan hala bedelo qoraal rasmi oo dowladda soo gaarana ma jiro waa mahadsan tahay waxaan ku noqonayaa doctor cabdi cali anoo u iman doona cabdisalaan markaad eegto alcadaala ereyada ama dooda sida uu u dhigayo in guddiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa hadda muuqan ma jirta arrintaas horta alcadaala garow leh xukuumadda waaye isaga xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaca waa garay gardar laakiin cabdisalaan waxa uu sheegay xaqiiq way agaasima ku-xigeenka guud ee madaxtooyada cabdinuur guddiga waaye ololaha hadda socdana guddoomiyaha guddiga inuu noqdaa macquul ah waxa indhaha laga qabsan kara maaha been la sheegi karana maaha maamti waxyaaba waxaa jira aan sacbo iyo indhaha aan lagu qaban karin nabad sugidana dee asaa ka tirsanahaa oo taliya ku-xigeenka ahaa dee asaa iyaga xogaalsan saraakiil badan oo ciidan ka mid aha laga yaabaa inay ku jiraan caadiyana sharcigu marna ma ogolaanayo in qof shaqaale rayid ah inuu uu doorashaba ka qayb gala adduunka oo dhan haddaa musharax noqonayso haddaa aad tegayso waa inaa horta shaqadaada iska casishaa 6 bilood ka hor ma ahan xataa maalmaha cabdinuurna ilaa hadda uu maxaa la yidhaahdaa madaxtooyada fadhiya hadda cajiiba haddana dhinaca kale xildhibaan nu qoraya ma haysaan laakiin adinka annaga hayna mogtahay marka politically qof involved ah ma noqon karaayo marka dadka garay leeyihiin aniga midaan jeclahaa jirta gaal dil gartiisana sii xukuumadda labadeeda heer labadaba waa ku fashilmeen inay inta isla fariistaan heshiiyaan waxa aad very simple way ahayd qolo walba inay wax boobtay rabtaa aniga horena waa u sheegay
qolada oo dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay, iyaguna waxay u dagaalamayaan xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan boobaan daday rabaan keenaan. xukuumadda federaalkuna waxay rabtaa inay boobto iyadoo xildhibaano ay wadato ay keento. dalkaana dimuqraadiyad laguma gaarayo. anugu mabdi'iyan doorasho dadban waa kasoo horjeeday. 2 sano waxaan ku dagaalamaya doorasho qof iyo cod ah sida keliya cadaalad lagu heli karo oo dalkan musuq maasuq iyo eex iyo qaraabo keeli looga badbaadi karo. doorashadaas ay ahayd. ama waxaan qabaa haddana waa ku fashilmeen. mana u jeedo ifafaale ay ku heshiin karaan labada heer ee xukuumadda. hadday saa tahay madaxweynaha 8 February ka dhacaya mandate-ka baarlamaankan awood wuxuu u leeyahay inuu isu rogo baarlamaanka 11aad qodobka 6aad ee dastuurka farqadiisa 3aad waxay ogoshahay baarlamaankan haddii baarlamaan kii bedeli lahaa soo dooran way isaga automatically wuxuu noqonayaa baarlamaanka 11aad. daasmiina macnaheedu waxa weeye xukuumaddu waa fashilantay, xukuumadda labadeeda heer waa fashilmeen, baarlamaanka go'aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo u jiheeyo maxaa la yiraahdaa inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin. guuleed markaa ku siiyo miyaanay gar noqon karin haddii aan qodob sharciya la keenin ama wax muuqan kara in mucaaradka waxay ku doodayaan qaar ka mid a gudiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirinba haddii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodayso qodobkaasi iyo qodobkaa darteed hebel ma muddo inuu meesha galo. horta soomaalida waxay ku maamaadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay. wixii la qortay ayaa dadka kala haga, haddii kale dee xoog bay noqonaysaa. haddii mas-uuliyiintii waddankan ugu sarreysay ee madaxweyne cabdullaahi farmaajo madax u ahaa maamul goboleedyadii qof ka maqnayn markii somalilan laga saaro intaasoo maalmood ay fadhiyeen oo dhuusamareeb 1 laga soo bilaabay wax la isla gaaray. soomaalida waxay u ahayd rajo weyn iyo waxay ahayd qab weyn oo iyadoon lasoo dhexgelin soomaaliya waxeeday xallisatay. qof kastoo soomaaliyana ku reynayay heshiiskaas la gaaray waxbaa la isla qodobeeyey, waqti baa la geliyey, juhdi baa la geliyey. qodobadii lasoo qoray oo dee nin kasta uu yidhi waan ku qanacsanahay bay ahayd waxaan la isla qoray oy ku qoran tahay war qofka da'diis waa inay intaas noqoto, waa inuusan dowladda ka shaqaynaynin, waa inuu dhexdhexaadna waxaa laga wadaa qalbiga lagama wado, waxaa laga wadaa qof noo dhexayn kara oon aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro adiguna aadan ogeyn inuu nagala jiro laakiin aan calaamad lahayn. soomaalida garan qof Arsenal ciyaartoy markaas qof Arsenal qaba dharkeedii yani ma dhihi karo Manchester oo taageeraya stadium ka soo galo. soomaalida garan waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxaad malaysa dawladdu way ku takrifashay. Cabdinuur waa ninka ugu weyn hay'adda nabad sugidda. Cabdinuur ninka ugu weyn madaxtooyada joog waana kaliir inuu la shaqeynayo ololama uu ku jiraa abaabulmi uu ku jiraa xildhibaano mu qora aanu ma cadeyn kara taas laakiin waxaan ogaa inuu guddigana ku jiro sharci darrana ay tahay wixii lagu heshiiyey. hay'adda nabad sugidda lagu eedeynay anaa taliye ka ah soomaalida garan Cadaala maanta waa wasiir ixtiraam weyn aan u hayaa. waxaan ogahay inuu iga xood ogaalsan yahay soona iyo maaragtay warbaahinta hay'adaha dawladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda hay. saraakiil anigu aan aqoon madax u ahay baa hadda ku jira oo iswacnoon isnaqaano baa liiska ku jira oo nisa ka tirsan marka wax la qarinaya ma ahan. marka waxaan qabaa dhinac kale hadaad fiiriso dawladda madaxweynuhu waa murashax xilka inuu ku soo laabto raba. prime minister ku xigeenka guuleed waa murashax xildhibaan uu doonaya inuu noqdo. agaasimaha nabad sugiddu waa murashax xildhibaan buu doonaya. laakiin ma hayna yani okay aan ku kala duunaano wasiirkii hor fadhiya Cadaala xildhibaan uu doonaya. dawlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii wasiiradii agaasimayaashii ay iyagu murashaxiin u yihiin xilalka la doonayo Soomaaliya inay kula tartanto laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaa noqday si la isugu hadlay karo kursi loola soo fariisan karo uma jeedo haddaan wax laga bedel sida wax u socdaan. alcadaala waad filaysaa eedaha ugu badan in laydin jeedinayo haddii xaaladdu sidan ay kusii socoto kolley wejiyo kala duwan baa la arki karaa laakiin idinka maxaa qasbayaad isleedihiin dad la eedeynayo leeyahay nabad sugidii bay ka tirsan yihiin taliyaashoodiiba ay sheegayaan iyo mas-uuliyiin ka shaqaynaya madaxtooyada inaad guddiga ku dartaan taasoo eed laydii qabsan kara maaha. waa mahadsan tahay walaalow dictoorka iyo taliyaha walaalkayna aad iyo aadan ra'yigooda u ixtiraamaya. horta waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo. waxaan rabaa horta dadka Soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay. sawirka saxda ah ee xaaladda Soomaaliya ay leedahay in la siiyana sax maxaan taas ula jeedaa? taas waxaan ula jeedaa rabitaankii dawladda Soomaaliya iyo wixii ay isku diyaarisay oo ay ka shaqaynaysay Dr. Cabdi Cali sheeg waxay ahayd waddankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado. doorashadaas ay ahayd inay qabtaan
waxay ahayd guddiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa bannaan ee aan madaxweyne farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona recommend garayn aqoonna iyo qof xukuumaddan ka mida qofkoodna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda bannaanka taagan iyagoo ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan waxay ahayd doorashadaas dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan doorashadaas maxay u dhici weysay doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalahay halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah doctorka moogu waa ogahay inuu taageersanaa in doorashadaas dhacdo laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dawladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu uu saxiixay sharcigaas sababta tanaasulku welibana awoodii dawladda la qaybiyo oo maanta gudiyada jooga wax ka badan 70% aanay dawladdu talana ku lahayn ra'yina ku lahayn go'aanna ku lahayn iska dhaaf inay iyadu u shaqeeyaan qaar badan oo kamidana meel aan dawladdan laga jeclayn laga soo magacaabo iyada oo dawladdu marka u sameynaysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada og yahay ay dawladdu qaadatay go'aanka noocaas oo ah in dawlad goboleedyadu ay gudiyada inta ugu badan soo magacaabaan waliba kuwa go'aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh hanaankii sidaas ku yimid marka oo dawladdu iyadoo ay victimka u ahayd iyadoo ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo inay dawladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aad weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu Cabdisalaam sheegay war dawladeed warqadu ku yaala walaalo wixii shakhsi nacayb qofku nacab yahay anigu kama jawaabayo mana ka difaacayo inuu target gareeyo inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoo qodob lagu eedeeyay lahayn in lagu xadgudbo leeyahay hebel ninka leeyahay muxuu shaqadaas u hayaa ama hebel maxay shaqadaas u haysaa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga aqoon badan waaye waa khalad sharci ah iyo xadgudub shakhsi ah waaye oo ay laga munaasabsan yahay in laga yimaado waxa soo haray dadka guddiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan aaminsanahay dawladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsan wixii lagu heshiiyay ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaarkood cabasho laga qabo soo sheegay taliyuhu uu yaqaano qof sharciga ka khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxa laga rabaa ama cidii kale oo cabasho qabto xisbiyo mucaarada ama musharaxa inay intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa ku soo qorto oo qodobka ku soo lifaaqdo oo warqad rasmi ah oo saxiix iyo stamp la prime ministerka u dirto ama ula tagto iisugu marka waxaan ku yiri prime ministerkii maanta uu jooga laba jeer uu hadlay gobolow dhigo qofka cabasho qabta hay yimaado yiri hal qof oo cabasho qabana uma tagin hal warqadna uma tagin waxa la rabaa marka go'aanka in laga gaaro waraysi idaacad laga bixiyo iyo munaasabad television lagu qabtay taas ma aha halka waxa meeshan ka socdaan raba marka inaan ku sheego waxa meeshan ka socdo oo runta waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa ka go'an 8 February inay ku qabato doorasho bedelkeeda waxa ka socda wadankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashadu waqtigeeda kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qof shacabka Soomaaliyeed inay noo codeeyaan ma ogolin maanta narrative-ka suuqa yaalo dadku dhan ogyihiin waxa waaye dawladdii oo doorashada ha dhacdo oo gudiyadii ha shaqeeyeen iyo walaalaheena oo ma doorashada ma dhacayso annagu waxaan leenahay walaalayaal inta tartantaan kale gudaha soo gala annagu aan banaanka tagnay dhibaato ma jirto haddaad isku kalsoon tihiin marka waxa kale meeshan ku jira maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar baa laga hadli jiray waxa la dhigi jiray ninka xukunka haya shaar leeg oo tasha walaalaheen waxay raadinayaan oo hebel loo level gareynayo oo hebel waa askari loo leeyahay waxay tahay qof ay ayagu rabaan inuu meesha soo galo harqaanlahaas iyaga ay rabaan inuu meesha soo galana shaar ayaga leeg oo sahli kara inay filla Soomaaliya soo galaan inuu tono taasuna suurtagal ma ah marka walaalayaal doorashada ku soo laabanaya Dr. Cabdi Cali dooda labada dhinac waa dhageysanaysaa hadalka al-cadaala waxa uu ku soo daray wax kasta waxa loo baahan yahay inay sharci noqdaan adaan mudanayaasha baarlamaanka nagala jooga sidee wax u socdaan hadda la joogo marka laga soo tago aragtidii hore doorasho qof iyo cod ah arinta hadda taagan bal sharciyada oo al-cadaala soo qaad hadii aad eegto aniga al-cadaala mid waa ku taageersan al-cadaala xukuumaddiisu difaacaya doorasho ma haysto marka xukuumadda ku jiray saasaan u difaacay garayay gardarraba marka waana waajib way oo sarkaal la soo diray oo yoolka dawladda inuu difaaca ay tahay laakiin ma jiro maran habaabin shacabka Soomaaliyeed aan maran habaabinayn shacabka Soomaaliyeed habarta ariga raacayso siyaasadda Soomaaliya waa ka warqabtaa wax qarsoon oo Ilaahay abuurtay male Cabdi Cali kursigiisa meeqa qofooda ku tartamayso xagee kala joogaan cid walba waa ka warqabtaa ma garat marka waa kayga kaliya markaan kaaga soo qaado fargelinta oo ku socota yaa haddaan waa sheega iraahdo ma rabo inaan rabo inaan sheego waxay noqonaysaa target qof aan samaynayo ma garat laakiin abuse badanaa jira oo cad oo boob ah oo waa dhacday waagi xasan sheekhba waa dhacday
oo waa tan hore u sheegaynay xukuumadda markaa joogta inay wax boobto ay diyaar u tahay qolada dowlad goboleedu inay boobaanay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anigu dadkii aada uga soo horjeeda ahaa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yidhaahdaa wax aan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rab inaan naqdiyo alcadaala shaqadiisu haystaa laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay wado adiga hal tusaaleaan kaa rabaa puntland oon diyaar ahayn oon guddigii keenin iyo jubbaland oon guddigii keenin hadday dowladdu leedahay waxaan qabanayaa doorasho caqli miya dalkan weli baryuu ku jiraa ina adeerow iyo walaalow waa lagu wadi karaa dalkan dal la ismaquuninaayo maaha ma garat ninkii madaxweyne dalkan ka noqda nabadoon inuu noqdaa laga rabaa inuu bakooradiisa qaato tuulo walba tago yidhaahdo ina adeerow soo laabo oyna ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anigu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go-aanka siinay xaliimire waa noo timid march doorashaan qabanaya ay dhahday asaa tanaasuli maaha in lagu eedeeyo hadda alcadaala uu ku eedeeyo xasan sheikh iyo niman banaanka jooga oon legitimacy haysan aniga waxaan ku eedeynaya asaga iyo xukuumaddiisa waa tahay isagaan dib ugu laabanaya asagan ku laabanaya alcadaala markaad eegto weli isqabqabsiga way jiraan mucaaradkiina muqdisho go-aanay ka soo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan guddiga waa la dhaliilayaa jubbaland iyo puntland guddiyadii doorashadii xalinta khilaafaadka ee heer goboleed maysan soo magacaabin sidee doorasho u qabanaysaa horta dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hogaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo markii horena heshiiskan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani 90% cabsida horta la abuuraha ma jirto 90% gudiyadii waa soo dhamaystirmeen meelaha yaroo ay mushkilada ka jirto oo ay dhibaatada ka jirtana dowladda waxaa ka go'an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyana si midnimo oo la isku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo hadii ilaahay uu yiraahdo waxa soo haray laba xuquuqooda meeshan isdhinacaya xuquuq dowladda labadeeda heeraale inay isla shaqeynayso in isla shaqeynaan qadiyad kala waaye isla shaqeyn xumo hadda heerka la gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dowladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyey in ay qabato si la mid ah sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo ka sii hufan xuquuqdaas dowladda iskale walaalaha kaleete ee mucaaradka ah ee muxtarimiinta ee sharafta leh ee banaanka jooga musharaxiintana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada Soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii uu 2016 ku lahaa mid ka badan oo maanta ku lahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo ana musharaxu xagga joogan go'aanka gaara sax ma laakiin in la qanciyo xaq buu leeyahay in la qanciyo xaq u leeyahay waana ku sheega prime ministerka oo processka iyo shaqada mas'uulka ah gobol u fidiyay walina goosha waa u fidsanta alcadaala waxa uu leeyahay sida wax loo malaynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badan oo maqnaan kara hadda ma muuqato xal hoose jira maxay tahay mucaaradka saska ay qabaan horta mucaaradku ma hadlo mucaaradna ma ihi muxaafidna ma ihi qof madax banaanaan ah laakiin waxaan ahay qof dhex jooga siyaasadda Soomaaliya kana soo shaqeeyay wadankan jecel wanaagina wuxuu dhacaan dictor saaxiibkay xildhibaan wuxuu ku soo celiyay alcadaala waxaan ku taageerayaa dowladda difaaciyo taas waxay meesha ka saaraysaa mowqif sax iyo qalad inaan laga hadlin wixii dowladdu rabtay horta wasiirka saaxiibkii alcadaala oo ka hadlaya taas meesha sandhigayna tan kale Jubbaland iyo Puntland aqalka hoose hadana qaldanay xildhibaanka 80 xildhibaan ay ku leeyihiin aqalka sarena 22 qofood ay ku leeyihiin 102 qofood hadana qaldanay waa miisaan aad u culus markii la fiirsho baarlamaanka Soomaaliya hadday maqan yihiin in la yiraahdo wax hawshii waan wadaynaa waxaan isleeyahay calaamad booba oo ixtiraam darro ah oo wixii lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay karaba ka soo horjeeda meesha ka socda qodobada haddaan dib ugu laabto wixii lagu heshiiyay la qoray haddaan laga run sheegin waxaan qorrayna la iskuma ixtiraami karo la iskuma aamini karo guddiga doorashooyinka qof iyo cod dowladii hore waxay ku dhacday ee xasan sheekh in qof iyo cod sameeyso waxay dhan waqti ma haysano waqti baa la siiyay 4 sano ayaa guddiga doorashooyinka ee madax banaanay bay haysteen maalin dhaweed markii ay gudoomiyaha guddigu hortimid baarlamaanka waxay tiri waqtina ma hayno
dhaqaalo uma aynaan haynin ma ka gaarsiin karno sidaas darteed waxaan soo jeedin 3 soo jeedinood oo mid kasta ay waqti dartaa waxaa soo baxday inaan waxba la qaban 4 sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod fiiri wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa qofku in la codeeyo waa inuu xuquuqdiisa sharci xuquuqdiisa cod xuquuqdiisa number dokumentigiisa inta qofooda gurigaas deg waxaa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxaa ku baxa hawl badan dawladda Soomaaliya 4 sano haysa hal wax oo waxaas kamida ma aysan qabanin eraga marka qof iyo cod aan qabanayna waa wax lamida yani waxaan u baahanaa waqti dheeraysi haddii murashaxiinta nimanka xilka madaxweynaha hore ku jira ra'iisul wasaare hore ku jira niman mas'uuliyiin oo wadankan waxa maanta madaxweynaha ku fadhiyo ku soo fadhiyay baa ku jira maalin dhaweed waana jeclahay su'aashaas inaan cadaalad weydiiyo duqa magaalada Muqdisho oo ah ninka saameynta ugu badan gobolka Banaadir ku leh baa hadlay fadwo soo saaray in la dilo dawladda Soomaaliya kama hadlin mana ka jawaabin ma u dhahantaa waa raba inaan weydiiyo ta kalena weydiinaya waxay tahay mucaaradku warqaday ka soo saareen Nairobi waa dad muxtarimiin oo xaq wadanka ku leh xamar isugu yimideen si nabaday shir u qabteen murashaxiintii warqaday soo qoreen konseynkeedii ku muujiyeen waxaan qodobada uu leeyahay al-cadaalad lama soo hordhigin waa ay soo dhigeen laakiin ra'iisul wasaaraha gogol buu fidiyay leeyahay loo yeeray cid kasta tabashan ku dhameeyo ra'iisul wasaaraha gogoshiisa inay galaan iyo inaysan gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhaxaysaa Soomaalida garan laakiin markii warqadahaas cabashadu ku qorantay in laga soo jawaab ee qodobka kaliya jawaabta dawladda ka yimid oo yahay fadwada gudoomiyaha gobolka Banaadir oo laga hadlay waxaan isleeyahay dawladdu way ka jawaabtay waxaan ugu faahfaahsan fadwo su'aasha markaan rabaa inaan weydiiyo aan jeclaalahay haddaan adiga aala waxay tahay al-cadaalad mucaaradkii concern-koodii ay keeneen ee in wax laga bedelo guddiga doorashooyinka wax ma ka bedelaysaan mise sidooday ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysaa su'aashaasaan jeclaabay inaan weydiiyo waa mahadsan tahay Dr. Cabdi Cali aan siinaya al-cadaalad intaan u imaan markaad eegto dooda labada dhinac u socota doorashada iyo arrimahan looga hadlayo sidee wax loo qaban karaa leedahay hadda mar haddii dawladdeena ay leedahay waxbaa la wadayaa mucaaradkeena ay siluug qabaan sidee xaaladdu u muuqataa aniga wax kalaaba ii muuqdaba xaqiiqdii waa u malayn maayo in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay heshiin karaan markaan fiiriyey ma ii muuqato waxaa aqaanaa axmedooba dhaqankiisa aqaanaa siciidaniyaa aqaanaa ma fahamte hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbedelada socdaa ujeedaa uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra-iisul wasaaraha federaalka iyo gogashaan uu fidinayo mar hadday saa tahay an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh sharciyadda saa iska leh madaxweynahana hore aan uga heshiinay sharci annagaa samayna sharcigii doorasho qof iyo cod aan u samaynay oo ansixinay uu saxiixay uu la tegay waa u soo shaqayn waayey afgarad siyaasadeedu la yimid wuxuu yidhi niman yahow waxaanaan wadaaye ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay agosto haddana nagu soo noqday dhuusmareeb 2-3 waa u sharciyeynay hadday ka fashilanto annagay noo soo noqonin sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo Soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annagaa soo saarayna marka waxaa leedahay xil gudawaaya muuqata baarlamaanka awoodda baarlamaanka soo noqonaysaa madaxweynahana hore aan ugu heshiinay asagaa ka codsaday baarlamaanka waa u yeeraynaa waxaan leenahay tala halkaasay maraysaay maxaa la yidhaahdaa go-aan annagaa iska leh waa aragti kale al-cadaalad su-aalo badanaa la soo jeedinayaa saaxiibka guuleedna hadallo badan oo soo jeediyo runtii mararka qaar la garawsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggiina agtaan waa mahadsan tahay cabdisalaam waana mahadsan yihiin cabdicasiis akhyaartana aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalkay saaxiibkay cabdisalaam anoo aad u ixtiraamay cabdisalaam dhexdhexaad maaha oo hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaan u saari lahaa marka dhinacuu ka raran yahay saaxiibkay culaysna male ra'yigiisa waa lahaan karaa midda labaadoo aan raba inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimoodaa meeshaan isdhex taalo labada arrimood isdhex taalo horta waxa waaye mabda'iyan rabnaa in la kala caddeeyo meeshaan dawladaa jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in laysku qaldo ma rabno
nin mucaarad oo banaanka jooga intuu filla Soomaaliya fariisto sideedii u fakaro isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu asagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo oo gudiyada dhiso oo shaqada qabto haddii aysan saas dhicin inuu wadanku baaboo oo dhibaato dhacdo oo aan doorasho dhicin bigjarka uu sax ma ah wadankan doorasho waa ka dhici jirtay dawladda maamuli jirtay nooca doorasho maanta ku jirno waa ka dhici jiray wadanka isagoo heerar kala duwan ah 2012 processka madaxweyne Sheekh Shariif iyo dawladdiisa maamulay madaxweyne Xasan Sheekh oo banaanka jooga intuu yimid oo aan hal xildhibaan keensan oo la tartamo kursiga qaatay kalsooni ahayd iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta 2016 madaxweyne Xasan Sheekh processka maamulay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo banaanka jooga yimid waa la tartamay xukunka uu qaatay maanta processka jooga dawladda labada heer madaxweyne Farmaajo hogaamiya horta maamulaysa laakiin walaa dhamaystay waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kastoo la ra'yo inay fahmaan dalka horta dariiqo ku socda waa dariiqaas maanta in la yiraahdo maya ma maamuli kartid ma sameey kartid haddii asaas yeelana saas dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dawladnimadeena u adeegaynin waa number 2 cabasha jirta la yiri dad cabasho qaba meesha ay xaq iyo sharciga ka taana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegno waxaan dhahnaa war prime ministerka processka mas'uulka ka ahaa yimid dawladnimadu tanaaga kuma shaqayso iyo war saxaafadeed kuma shaqayso dawladnimadu waxay ku shaqaysaa hebel iyo heblo oo qodob hebel waafaqsan ra'iisul wasaare sharciga ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogolo walaalaheen inay yiraahdaan waa inay intay tagaan ra'iisul wasaaraha la fariistaan isaga qofkii soo magacaab intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalaheen ay ka cabsanayaan oo aysan rabin inay meesha u fariistaan waxaan aaminsanahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan anagoo ixtiraam u hayna waxa soo hartay arrimaha walaalkii Cabdisalaan uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu mas'uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimadda ah waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo cidda halis geliso mas'uuliyada ka saaran deganaashuhuna waa mas'uuliyad wadareed qof hebel la yiraahdo iyo shakhsi lagu xadgudbay iyo shakhsi uu ku xadgudbana annagu ma ogin dawladana mas'uuliyadeedu waxa waa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muxaafidka iyada mas'uulka xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgelyo dareenkooda u muujiyaan ay mudan yihiin aniga oo wasiir ku xigeenka warfaafinta aan waxaan ku sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsi gelin laakiin sharciga lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo shanaa dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxa loo baahan yahay qofka inuu qodobo la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay waxyaabo taagan waliba iyadoo laga sugay inuu gud soo magacaabo jawaabtii dawladda ay bixisay waxay ahayd in Kenya safiirkeedii la diro kii Soomaaliya la soo celiyo oo la leeyahay faragelinta iyo Axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaan ahayn dawlad wax lagu baran karo waxay qancinaysaa baysan suuragal noqon karin aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su'aal Cabdisalaan oo ku jirtay iyo doctorku ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo oo ah dawladda iyo dawlad goboleedyadu inay isku dhacsan yihiin oo aanan heshiis ahayn sax ma ah wadankan 5 dawlad goboleed ka jirto 3 kamid ah waxa la wixii guddi laga rabo waa soo dhameystireen 2 kamidna gudiyadii laga rabay qaybo badan oo kamid ah ay soo direen qaybo ayaa ku dhima hal state oo kamid ah stateyada jira ayaa si official u hadlay oo muujiyay in ay concern qabaan oo ah Jubbaland حتى بطل مدحونه وهذلي واحد بعتنا ما موجين سوى ناقصين إلى شغله كوسع عطاء أنا سوى ناقصين كلهم معنا يسوي شيء مدحونه جبلان قد يدو وكه الله كوسع بس قبل كجدو يدنا تفسير قردنا على جبهه قبل كجدو مقالة جربهاري وحي كم التهاي ماليه مدحونه أحمد مدوب وصحيحي أنا يكرر عدد دور شذا وصحيحي أم باكر دعدون وحكدون أو كجرا ماشى مجران عيدا كلاجها الله وماشي جوجا وحي لمديهن عيدا كصوماليات Puntland jooga Jubbaland jooga South West jooga Doosamareb jooga wax ka duwanay kama jiraan qadiyada Kenya qadiyad aysan ahayn in siyaasadan lagu milo oo ay tahay dadkeena inay ka feejignaadaan way sababtu waa maxay dalkeena iyo dal kale ishayo anaga iyo Kenya inaan ishaynaa hadda ma bilaaban waqti badan ay soo jirtay mas'uuliyadda dawladda waaye iyada siyaasadda arrimaha dawladda mas'uulka ka ah ayaa mas'uulka cid la faragelin karta iyo cid la qashqashaadi karta oo ma jirto waana nasiib dar runtii in mas'uuliyiin Soomaaliyeed oo dalkan rab inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka Soomaaliyeed iyo yaani siyaadada wadankan inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yaani ay u dhasheen oo matalayeen iyo dal kale oo ishaya ay muujiyaan in ay yiraahdaan waa ka xunnahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inaysan dhicin aanan jeclaan lahaa inaysan dib u dhicin Dr. Cabdi Cali gobolka Gadaada ka soo jeeda
waana meelaha ugu badan ee jubbaland iyo dowladda federaalka iyo doodooda ay ka taagan tahay oo la leeyahay Kenya siyaasadii fargelinaysa Soomaaliya bal markaad aragtidaada ku biiriso yahow doorashada oo Jubbaland ogtahay dowladda federaalkana miday gar ku leedahay dowlad goboleedka Jubbaland miday gar ku leedahay xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkan ka tirsanahay dhexdhexaad xataa ma noqon karay daan hadlaayo waxaa laga yaabaa in oo si emotional ah u hadlo laakiin hadda waxaan isku dayayaa si cilmiyeysan oo dadkuna ay fahmi karaan oo siyaasadeysan inaan u ifiyo waa waxyaabaha aan leeyahay dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada waxay isla yihiin hal hay-adda fulinta la dhahay iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkaygana waa ku bilaabay waa isfahmi laayihiin shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta wasiirka arrimaha gudaha federaaleynta inuu madaxweyne Axmed Madoobe hoos yimaaday ahayd ogtahay problemka jira annaga wixii ku ciyaarayna dowlad goboleedyadu waxay isku dheerarinayeen madaxweynihii federaalka xataa ra-iisul wasaaraha iskala weyn yihiin ma garat marka waxyaabahaas aan ku ciyaarayno iyadoon waxba laga qaban karin way adag tahay inaad noqoto qof dhexdhexaada oo aragti oo tiraahdo hebelaa saxsan systemka iyo say u dhaqmaayaan oo dhan wada qaldan tan kale doorashada dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Madoobe gar ku yeelanaya in loo daayo way haddana saas way tahay de gobolka Geda asay gacanta kuma hayo nimankii deegaanka u dhashay macalimiin la yiraahdo Toora Meeshka ah ciidankiisii u haystaa dadkiisii u haystaa asagana problemka asaga iyo dowladda Axmed Madoobe iyo dowladda federaalka kala haysta yaa asaga iyo Axmed Madoobe kala haysta laftirkooda waxay u baahan yihiin gorgortan kale iyo afgarad kale iyo heshiisiin kale iyo la geliyo haddaan ayaga la heshiisiinna doorasho ma ka dhici karto way Jubbaland midaysan oo wada socota oo doorasho hal jiha ujeed ma dhacayso saaxiibkay macalimiin iyo teamkayga iyo meesha aan doorashada u aaday waxay noqonaysaa bahal reer leeyahay halkaas say rabaan ayaga ay u jiheeyaan maybe dowladda federaalku ay garab siiso Axmed Madoobe meesha wuxuu dareemayaa de gobolkiisii in qayb laga wiiqay oo aan siyaasadii Jubbaland aysan gacantiisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicated ka dhigay siyaasadda Soomaaliya waxa wixii aan wali qabiil ka xoroobin wixii aan wali iyo jifaysi ka xoroobin dowladda Kenya waa isaga soo laabaya wax kala naga dhaxeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskale doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo ma garatay meelay ka soo galaan doorashadana maba lahan garbahaare lagu qabanaa garbahaare ciidan Kenya ma joogo maxaa la yiraahdaa fursad ay ku yimaadaan oo wax uga bedelaana ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimo dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa ayada iskale ayada go'aan ka qaadan karto waxay sameynaysaa aad ayaad u mahadsantihiin Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya xildhibaan Dr. Cabdi Cali Xasan iyo sidoo kale Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenka hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ahna falanqeeyo ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda Soomaaliya akhyaartii nala socotay intaas ayaan guniyaaf meer uga soo dhigaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da oo Muqdisho idinkaga imaanayay anigoo Cabdilcasiis Barrow ayaan idila socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo